المادة كوباد waxa weeyaan warqad lagu joojinayo cross border saleska ama iibabka ka dhaca meel Soomaaliland xuduudeeda ka baxsan oo hay'adda duulista iyo madaaradu soo saartay warqadaas oo gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo si khaldan shacbiga Soomaaliland ugu turjumay marka ugu horeysa warqadaasi ma saameynayso qof kasta oo Soomaaliland imanaya oo dibadda ka imanaya waxaan halkan uga bushaareynaa dhammaan qurba joogga Soomaaliland oo diyaaradii oo dhan imika ay soo sheegayaan inay buuxsameen batigidhadii oo waddanka markii koobaad 2 sano COVID-kii kadib si fiican u imanaya inaanay warqadaas wax saameyna dadka Soomaaliland imanaya aanay ku lahayn waxa kaliya warqadaasi saameynaysaa waxa weeye dadka Soomaaliland ka dhoofaya adduunyaduna si isku waafaqsantay ee kaawo waddan walba wuxuu cashuurta ka qaataa tigidhada ka dhaca gudaha waddankiisa maadaama Soomaaliland aanay ayaata member ka ahayn waxa dhaca dadka Soomaaliland laga dhoofinayo hay'adaha caalamiga ay ugu badan yihiin inay dadka Hargeysa ka dirayaan tigidhada Nairobi uga soo jaraan iyagoo Hargeysa tigidhadii ka iibsan karaya arrintaas bay 120 travel agency oo ka diiwaan gashan hay'adda duulistu cabasho noogu keeneen waxaana yiraahdeen shaqada Nairobi lagu qabanayo annagu waan qaban karnaa circularkaas bay maxkamadda Soomaaliland geeyeen maxkamadda xukunkii ku soo saartay wasaaradda ganacsiga iyo maaliyadda og baa la siiyay hay'adda duulistuna way dhaqan gelisay diyaaradaha Soomaaliland oo dhan way og yihiin oo way waafaqsan yihiin dadka Soomaaliland ka dhoofeen cashuurta ka qaadayno haddii aanan sida u habaynin cashuurtii tigidhadaasi waxay tagaysaa xamar bay tagaysaa shaqadaanu qabanayno had iyo jeer xeer baa loo qabanaya diyaaradina kaama yeelayso waxaan adduunka laga aqoon inaad ka soo saarto marka waxaan runtii hogaamiyaasha mucaaradka iyo axsaabta mucaaradka cid walba uga runtii ugu halkan uga jeedinaya marka si filaafisho ka hadlayaan inay ka fiirsadaan mucaaradku runtii aad iyo aad bay uga qayliyeen ururada la furayo isaga gudoomiye Xirsiwaan in cusub oo deemka meeshii lagu wareejiyay marka berigii la yaryaraad dhalinyarada marka dharka ama maryaha ciida loo iibiyo guri walba way soo mari jireen oo deen dhar ciida loo iibiyo dadka tusi jireen marka Xirsidee horta waa gudoomiyuhu la cusub iyo isagoo xaafadii wali soo wada booqan ayaa la ururadii waa la furay isaga waxba oran maayo carada waa loogu garaabay laakiin gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo 20 sano ummadan soo hortaagnaa shacbiga Soomaaliland 3 jeer ay u sheegeen inaanu madaxweyne aanay u dooranayn wax yaab leh waxa uu runtii markan rajada uu qaba aanu garanaayo Faysal adigoo 3 jeer lagu dooran waayay oo waxyaabo lagu dooran waayay qabyaaladaasi kow ka tahay aad baan uga xumay runtii inaad tiraahdo maalin walba cid baa qabyaalad ku dhaqmaysa xisbigaagu adiga iyo waxa aydan dhowrkii qofna way ka tageen hangoolkaaga baa kugu soo haray adiga hangoolkaagu de shacbiga Soomaaliland maalin walba ku karmaysaan nabadgelyadana cidna de laga bari maayo cid kula joogtana ma garanaysid waxa weeye waxa laga hor joogaa heestii hore walba waxaan ka hor joogaa haadaani soo joog beerse baadashada tuuba laga hor joogaa maareeyaasha iyo wasiirada dalku waxay ka mid yihiin golaha sare xukuumadda waxaanu ka midnahay golaha dhexe xisbiga kulmiye waxaanu difaacaynaa siyaasadda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi xaq buu mas'uul walba u leeyahay wixii ula muuqda in waddanka dhibaato ay u tahay iyo wixii deelqaaf la muuqday inuu ka jawaabo